xirada qaxootiga ee Xagadheere oo maalnimadii shalay galinkii dambe ee xasarad ka taagneyd ayaa maanta u eg mid ka soo reynayso marxaladii shalay ee dagaal. Xirada qaxootiga ee Xagadheere ayaa shalay galinkii dambe lagu dilay wiil Soomaali ah laguna garaafeeyay laba ruux oo madow Kenyaan ah oo maalimaaleedii meesha ku shaqaysanaysa ahayd. hase ahaatee xilli markii dambena waxay bilaqaysteen Soomaalidii alaabihii waratada ay ahaayeen ee lahaayeen nimanka Kenyaanka ah ay halkaas ku nool. Samaanta xalku degan yahay alxamdulillah.